Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome to another video. Maanta waxaan kan ugu hayaa sida u sameeyay qaabka ay u sameeyso shinidu malabka. Fadlan haddii aad xiisayn jirtay in aad mar uun daawato sida shinidu malabka u sameeyso, waatan iga qabo. Waa videogaagi welcome. Shinidu waxaynu ognahay in ay ka mid tahay nooleyaasha duula amba baalal kale. Badanaana waxa ay ka samaysaa malabka, ubaxa iyo waxyaabo kale oo Ilaahay ku arsaaqay iyada. Eega waxa ay u diyaar tahay in ay samayso malabka amba ay aas-aaskiisa bilowdo. Hadda sida aad u jeedaan waxa ay samaysay weelkii ay ku shubi lahayd malabka. Tani waa habka ugu fudud ee ay u samayso shinidu malabka. Tani waa marka koowaad ee ay samayso malabka, taas oo ay ku soo ururaan dhammaan shinida. Tani waxa ay u muuqataa mid aad u qurux badan. Waxayna u wada samaynayaan si wada jir ah. Weelka ay ku samayso shinidu malabka waxa ay leedahay hal god oo loogu talagalay in flower-ka lagu bacrimiyo amba ay ku qooyaan hormoonada uu siiyay Allah shinida. Waxa kale oo soo raaco hal god oo loogu talagalay in ay ku shubaan biyo amba qandhoof ay ku soo qaadeen afkooda shinidu. In ka yar shinida qayb marka loo qaybiyo waxa ay yihiin lab. Qaybta kale soo hadhina waa dhidig. Waxayna soo qaadaan in ka badan 500 oo bilyan oo ubax ah amba aad u taqaano flowers ah. Kadib waxay ku guuleystaan inay sameeyaan malab.